Waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni Daayaha Dhulka. Qodobkan maanta ku baran doono ama ku faaqidi doono ayaa waxa uu yahay dalka Ruushka. Ruushku waa dal ka mid ah wadamada dhaca labada qaaradood. Waxa uu dhacaa bariga Yurub iyo waqooyiga Aasiya. Waa dalka caalamka ugu baaxadda weyn, sidoo kale 8 meelood marka loo qaybiyo dhulka caalamka ee la degan yahay. Ruushku waa meel ka mid ah. Waxa uu ku fadhiyaa masaafo dhan 17 milyan oo kiiloomitir oo wareeg ah. Waxa uu xuduud la wadaagaa 14 dal oo dhaca Yurub iyo Aasiya. Sidoo kale xuduud badeed ayuu la wadaagaa Mareykan iyo Japan. Waana dalka ugu badan ee caalamka wadamo intaas le'eg xuduud la wadaaga. Norway oo dhacda cirifka waqooyi ee Yurub iyo waqooyiga Kuuriya oo dhaca cirifka bari ee Aasiya. Inta u dhaxaysa ayuu Ruushku ku fadhiyaa. Tirada dadka ku nool Ruushka waxaa lagu qiyaasaa 146 milyan oo qof. 77 boqolkiiba dadkaasi waxa ay ku nool yihiin qaybta dhacda Yurubta. Moscow waa caasimadda ahna magaalada ugu weyn Ruushka, sidoo kale waa magaalada ugu weyn qaaradda Yurooba. Ruushku waa dal hodan ku ah kaymaha, webiyada iyo harooyinka caalamka. In ka badan 100,000 oo webi ayaa mara gudaha Ruushka. Webiga Volga ayaa ah kan ugu caansan, waana webiga ugu dheer qaaradda Yurooba. Sidoo kale in ka badan 2 milyan oo harood ayaa Ruushku leeyahay. Harada Belka oo ah harada caalamka ugu gunta dheer, lehna biyaha nadiifta ah ee caalamkana tan ugu da'da weyn caalamka, ayaa ka mid ah harooyinka Ruushka. Ruushku waa dal leh kheyraad aad u badan oo saliidu ka mid tahay. Waa dalka ugu ballaaran ee caalamka saliidda ama shidaalka soo saara. Waana dalka haysta kaydka gaaska caalamka ugu badan. Sidoo kale waa dalka 8aad ee haysta kaydka shidaalka ee caalamka ugu ballaaran. Waa dalka shidaalka uu soo saaro aad ugu tiirsan yihiin wadamada Yurooba. Ruushku ka hor sanadkii 1993 waxa uu ka mid ahaa ama hormuud u ahaa dalweynihii la oran jiray Soviet-ka. Dal xilligaas ahaa awoodda dunida ka muuqata. Dal guul weyn ka gaaray dagaalkii labaad ee dunida. Dal awoodiisu baahday caalamka, tartan adagna kula jiray Mareykanka xilligaas. Soviet-ku waxa ay gaareen horumaro tiknoolajiyadeed oo aan la soo koobi karin. Waxyaabaha ay ku guuleysteen waxaa ka mid ahaa inay noqdaan dalkii ugu horeeyay ee dayax gacmeed sameeya, una dira hawada sare, dayaxana ku dultaga taariikhda aadamaha iyo arrimo kale. Ka hor intii aysan burburin, Soviet-ku waxay ahaayeen xilliga dalka labaad ee caalamka ugu dhaqaalaha badan, dalka haysta ciidamada ugu ballaaran dunida ee heeganka ku jira, dal haysta hubka ugu badan uguna halista badan, aadkana wax u gumaada. Sanadkii 1991 oo ku beegantahay xilligii dowladii Soviet-ku ay burburtay, waxaa ka samaysmay oo maanta jira 12 dal oo Ruushku ka mid yahay. Muddo badan ayuu Ruushku la dhibaataysnaa awoodiisa inuu dib u soo ceshado. Maanta Ruushku nidaam ahaan waa dal federaal ah oo awoodda iyo maamulku hoos tagto madaxweynaha. Vladimir Putin ayaa ah xaakimka xukuma maanta, waana shakhsiga soo ceshay awooddii Ruushku ku lahaa dunida, sidoo kalena Ruushka ka dhigay dal hodan ah dhaqaale ahaan. Waana shakhsiga muddo badan soo ahaa kan ugu saameynta iyo awoodda badan caalamka. Maanta Ruushku waa dalka 11aad ee caalamka ugu dhaqaalaha badan marka loo eego 20 sano ka hor booskii uu joogay. Waxa ay muujinaysaa Ruushku horumarka uu gaadhay inta uu ku hoos jiray maamulka Putin. Sidoo kale waa dal aqoonta iyo waxbarashada aad ugu horumaray, dal leh dalxiisayaal badan oo soo booqda. Dakhli sanadeedka soo gala dadka Ruushka waxaa lagu qiyaasaa $29,000. Ruushku maanta waa dal saameyntiisa dhaqaale iyo siyaasadeed ay caalamka aad uga muuqato.
waa dal ka mid ah dowladaha ku habaysan hubka caalamka ugu halista badan ee nuclear-ka, waana dalka haysta madaxyada ugu badan caalamka, waana awoodda dunida ka dhex muuqata go'aamisa jihada siyaasadda caalamku u socoto maanta marka laga yimaado Maraykanka. waa dal ka mid ah 5 dal ee haysta awoodda diidmada qayaxan ee qaramada midoobay kana mid ah golaha ammaanka. waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdallah Axmed Saciid Waqooyi. wixii intaas dheer waxaad ka dhugan doontaan YouTube-ka bartaan ku leenahay ee Nile Media. isla socod wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudano.